قال له تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لعلكم ترحمون إن الله خبير ما تعملون. وقال تعالى أيضا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وحان هل كان مهدنق وجيدين يا أولا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. marka insha Allah mahadnaqaas kadib waxaan halkan usoo fariistay waxaa kaloo mahadlahay dadkii ka soo qayb galay arrintan oo ila xanuunsaday marxuumad luul dhibkii gaaray. bacda mahadnaq markaan ka baxo waxaan kaloo u mahad celinayaa dowladda federaalka dhammaan madaxdeeda sare laamaha amniga dhammaan guud ahaan kormari. kadib waxaan rabaa halkan soo fariista inaan ka hadlo awalan dhibka loo geystay gabadhayda oo markii hore la dhihi jiray luul cabdicasiis. maantana lagu magacaabay marxuumad, sidaas darteeda dambiilihii naxariis laawihii oo sharaftii ugu yimid oon gabarteyda gacanta ka saaray inuu ku raaxaysto oo ku istimtaaco ayaa wuxuu sameeyey waxaad ka dheragsantihiin. waxa ayaan dar ah marka dambiilihii waa la qabtaa la yiri, laakiin markii oo la qabtay waa hadlay laamaha amniga uu mahad celiyey. waxaan dhahay waa la qabtay maana waa la keenay gabadhan asay sugaysaa marxuumadan. waxaa ilaahay qadar waa la keenay diyaaradda hoosteeda baawul cusaab oo qaboojiilaha loo geeyey sidii marti sharaf la sugayo oo kale. ninaa meesha ka hadlay oo amniga wuxuu ka tirsaa maaqaan dhahayo difaacu le ninkaan dambiile ma ahan eedaysana waay. awalan meeshaas waxbaa ka soo baxay iyadoo la ogyahay lasoo qabtay oo baxsaday ninkaan lasoo qabtay. hadda dambiile aan sugaynay in isla markii maxkamadda la saaro oo lala xareeyo 11 maalmood ayay ku jirtaa gabadheeda farinjeerka. isagana waxaa la geeyay meel oo mukayfla ku raaxaysto. hada laysa hada cadaalad ma ahan. cadaalad aan filay ma ahan intaan inay gabadheeda ku jirto aniga farinjeer isagana qol mukayfla la geliyo oo loola dhaqmo sidii oo nin oo tourism camal ah. sidaas darteeda soo qabashadiisii waxay kalifteen mukayfla geliyo gacanta nabad sugid ayuu ku jiraa la yiri. maxaa loogu dhagayaa nabad sugid? maxay waynaysaa wiilkayga gabadheeda ninka oo gabadheeda cadaalad ka sugayso? cadaaladaan sugayna anaga in la marsiiyo isla markii maxkamad la soo saaro. dambigu waa qiraal, wuu qirtay, waana cad yahay. sababta nabad sugid ay ugu dhagan tahay awalan ma sheegi kara aniga. kolley waxba iska jiro waana laga dheragsan yahay. maraba inaan wax ku dheeraado. ninkii la rabay in maxkamad la soo saaro reerkiisa lagu siinayaa meel waxa lagu leeyahay xabsi cusub oo meeshaas la geliyay oo been ah. sidaas darteeda waxaan codsanayaa dhammaan in dadka ay quusayso oo mas'uuliyiinta ugu sare wadanka in cadaaladii la horkeeno ninkan. waxaa wadanka ku jiro oo magaalada iyo meediyaha dhammaan internationalka dhammaan odagii ciddii wala hadala baan aan la leenahay waxbaan bixinayn lacag waxaan loo baahnayn iyo futuud oo dad oo ka muuqato sunnadii ayaa meeshii wax aan loo baahnayn oo iyaga iska wadwadaan. awalan wax la dhahay ma jiro diyo, wax la dhahay ma la wada hadal. cadaaladda waxaan ka sugaynaa in degdeg gabadhan cadaalad ay u hesho firjari ku jirtaa. isaga inuu ku raaxaysto guri meel mukayfla iyadana ay ku jirto firjeer oo hadda maanta waxaa dambe ilaahay waa la bixinaya hala bixiyo.
ninkaan raacnay ninkii oo soo abray markaan fiirinayna waa garanay sidaas darteeda diyo ma jirto wadahadal ma jiro cadaaladaan rabnaa gabadhi cadaalad raba aniga wax kalena mana karay aniga iyo dhammaan ehelka xanuunsan dhan in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiiyo hadduu cadaalad lahayna gooni waay labo midda kale haddii la waayo cadaaladda meeshaan waddankan oo hadda mas-uulka ka ah rasuulku wuxuu leeyahy alayhi salatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waa naqaana dhammaan diinta marka waxay u daahday cadaaladeeda allahu aclam ma sheegi karo aniga waxaa laga rabaa laamaha iyo mas-uulka waddanka dhammaan rasuulku wuxuu leeyahy kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi hadday wax lehayn ninkaan lacafina halii sheego أحكم الحاكمين عدالتي سنباقنين أحكم الحاكمين عدالتي مباقنيش سيداس درتي إذا المردو كم هذين ميديا وحال الربا نمكان لجان وريقاي وحان إركان أدرنيو ودوده هيو هولا هذا لان كان ليو لعاقا أن شاكنيو وروحا سنين مئمانا يعني cadaaladaan raba lacag ma ugu baahna aniga maxaa yeelay qaab daradu u gubay feerey masawirka war inuu ku raaxaysto u talagalay way duwan tahay gabadheeda sidaas darteeda haddii cadaaladaan la waayo ama ay daado banaankan usoo dhigaya guri sambuus ninkii dubta ayaa cunay in gabadhii banaanka loo soo dhigay ay gogoostaan hala u geeyo xabsiga saasaan dhihi lahaa lianna waxay ugu jirta xabsiga maxay tahay xabsigay ku jirtaa gabadheeda oo frijer maxaa keenay samariir waay asagana uu meeshaan banaanka taagnaado ma dhici karto diyo iyo wadaadal horta in la niyeystaa ka hore dhan ma jirto maba la niyeysanayo awalan saas ogaada hadda korna waa dhahay haddana waa ku celinaya mar dambena waa ku celin doonaa gabadhan cadaaladeeda inay hesho waay ninkaan hadduu mutaysan yahay wuxuu mutaysan yahay cadaaladda hala soo hormariya waxaa lagu leeyahay mudan waay kan war waxaan waa khiraar waay wax walba iqraar hataa wax walbaa yaalo insha allahu dadka qaabilsan dhammaan laamaha amniga dhammaan madaxda dawladda waxaan ka codsanayaa cadaalad in la helo sida u dhaqsaa badan insha allahu gabadhii talaajada inaan kasoo bix banaankaan soo dhigo hagoo goosta ninkii oo gubay iyo dadka raaliga ka ah maxaa yeelay asukuutu calaamatu ridaa baa la yidhi aamusnaanta waxay kamid tahay waxyaabaha raalli lagu yahay dadka qofka markuu wax khalad sameynayo haddaa ka aamusto adi sukuuta raalli baa ka tahay sidaas darteeda ilaahay halaga baqo annaga ilaahay ka baqno awal naftiina waxaan isku dardaarmaynaa cabsida allah subxaanahu wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alaykum salaam تسد الشمس تريد عمر زهور